dhashaaday sugtaa xaajadaad doorataa abide nin dharbaaxa ceebee dugsaday dhaqayadeed maaliyo idinka idinla jirtaa waxaan rabaa inaan ka hadlo waxa lama seexan ciil iyo caro lama seexan waxaana weligay arag oo adduunyada ka dhicin baa ka dhacay Laascaano dad Soomaaliya oo muwaadiniin ah oo dalkoodii jooga oo aan dhib geysan oo weliba dhaqaale iyo farsamo ku soo kordhiyay magaaladaas iyo meeshii joogaan oo dhanba oo dalka ah in inta la soo qabto la yiraahdo Soomaali maaha baabuur ruug gor hal tarxiilo oo 700 qof xataa Sacuudiga oo dad tarxiilaa isku mar ma tarxiilo macnaheeduna yahay arintaasi dambi weyn oo la galay weeye weliba Laascaano oo meeshii xorriyad Soomaaliyeed loogu dhaqdhaqaaqo oo loogu dagaalamo ugu horeysay dawladda Ingiriiska oo calankeedu uusan qorraxda ka dhici jirin waxaana magaca loogu bixiyay adduunka dhan bay gumaysanaysaa meeshii 20 sano laga dagaalamayay oo laga xoreynayay dalka in dad Soomaali ah oo masaakiin ah oo shaqaysta oo wax dambiyo ay gelin jirin inta laga tarxiilo la yiraahdo Soomaali maaha xabashina ay joogto iyo Ethiopian waa adduunka gadoon waxaan weligay aragno maqalay maaha wax adduunka ka dhacay maaha wax la yaab la weeye waxaan rajaynayaa falcelin degdeg ah arinta in dadka ku nool gobolka Sool iyo gobolada waqooyi ee dalka inay falcelin degdeg ah ka qaataan haddii kale iyaga bari la tarxiilaya ayaka laftooda yaa laga tarxiilaya fallaartaasi way idin la jirtaa ceebtaasi way idin la jirtaa tacdarradaasi way idin la jirtaa taariikh xumadaasi way idin la jirtaa waxaadna ahaydeen dadka buugaagta Yurub yaala oo Ingiriiska iyo Mareykanka iyo Kanadiyaanku qoreen iyo Yurubiyaanku ku xusan baad ahaydeen oo isticmaalka jabiyay waxaan akhriyay joornaalo kuwa ugu waaweyn Yurub The Guardian iyo Mareykanka Washington Post New York Times 1911 ka qoraya maalin walba page-ka koowaad safxada koowaad baa lagu soo qori jiray dagaalkii muxuu ahaa daraawiishta Sayd Maxamed Cabdulla Xasan maalin kasta hadda archive-ka ku jirta marka rabtid kombiyuutarkaad galaysaa waa ka helaysaa intaasoo buug baa laga qoray meeshii saas ahayd dad Soomaaliya in laga tarxiilo waxa weeye waa urugo waa calool xumo waa xanuun waa taariikh xumo waxa weeye haddaydinaan iska dhiqin reer Laascaano iyo reer Sool iyo reer Waqooyi iyo reer Somaliland haddaydinaan iska xalin arintaa oo iska dhiqin cambaar iyo ceeb halkaa wajiga weligeedin kaga olaanaysa weeye oo ka ab Soomaali iska dhaxasho Soomaaliyana ma kala tagayso waad ogtihiin maalin bay soo imanaysaa arrin idin taalo weeye waxaan aad ugu mahad celinayaa dadka halkan ku soo dhaweeyay oo gaalkacay khaasatan maamulka gaalkacay oo madaxda ka yahay gudoomiye Sanyare Puntland maamulkeedoo dhan madaxdeedoo dhan dadweynaheedoo dhan waan u mahad celinayaa soo dhaweynta dadka ay soo dhaweeyeen oo yiraahdeen qofkii raba inuu koonfur galbeed aadana baabuurkan ka bixinayna qofkii kalena ha shaqaysto waliba waxay ku shaqaysan lahaayeen waa la siinaya aad iyo aad baad ugu mahadsantiin arintaas qoladaas laga soo rarayna umaleynmayo in isaga ku seexanaya waayo aniga seexan waayay oo aan reer Laascaano ahay laakiin Soomaaliya halka seexan waayay waan hubaa boqolaal kun oo Soomaaliyeed inay ka seexan weeyeen arinta ama dibadda joogeen ama gudaha joogeen kacdoon iyo kacaan shacbi ah bay arintaani riman tahay waxaan taa ahayn oo istaashaan ma jirto shalay baa halka lagu tarxiilay awaale oo nin Soomaali oo la yaqaan oo haliyay oo qaadka diida habeen barkii laga soo tarxiilay lagama filcilin shalay baa ninkii muxsinka ahaa oo khayr wadaha ahaa markuu sheegay dalka dib in lagu hayo oo la kiristaameynay caruurtayadii lagu xiro ilaa hadda uu ku xiran yahay oo cid aysan ka hadlin oo cid ka filcilin dhashaaday sugtaa xaajadaad doorataa abide nin dharbaaxa ceebee dugsaday dhaqayadeed maaliyo idinka idin la jirtaa
in dhowr qof karaamadiinni iyo taariikhdiinni iyo islaamnimadiinni iyo soomaalinimadiinni say rabaan ay ugu cayaaraan maya taa halkaasaan kaga baxayaa warkaasi waa idinla jiraa filcilin baan sugayaa tan labaad weliba waxaan rajaynayaa in meel kastoo Soomaaliya joogto ay ka mudaharaado oo ka banaan baxdo arrinta dalkoo dhan dhulalka maqan meelaha ay Soomaalidu qaxootiga ku joogto oo Yurub iyo Ameerika arrintaas si wada jira dadka Soomaaliyeed baan u abiil gareynayaa in looga dhiidiyo weeyo oo weliba dadka Soomaaliland degan ay u horeeyaan hormoodna u noqdaan waan ognahay dadkaas inay Soomaali yihiin Soomaalinimada jecel yihiin magacooda maamulada hadda jira wax Soomaali ka bilowday iyaga jira self denial in identity-ni iyo taariikhdiinni lagu sameeyo juurfalka inta laag waxa idin taabanayo intaas anagana taaban taa wixii ay af kala hayeen bay ficil ahaan u fuliyeen oo ceeb weyn ah oo maaha Soomaali kaliya ceeb kuma adduunka dhan baa laga cambaareeyay caalamka dhan baana ka soo horjeeda waad ogtiin 2 milyan oo Soomaali iyo in ka badan baa banaanka jirta markii dalka uu dagaal ka dhacay oo baasboor la siiyay oo guriyo la siiyay oo iskoolaad la siiyay oo caafimaad la siiyay kuwa xataa ma ku dayan waayeen ya kuwa cayrinaya laftigooda haysta baasboor ajnabi oo dibadda ka yimid waan ogna marka waa laba galle waa laba qof duality baa la yiraahdaa duality baa psychologiga lagu yiraahdaa laba qof weey duality-gu waa jiro qof baa marna sheekh wadaada ah marna shaydaan oo dadka dila marka waa qof jiran oo psychologically aan caafimaad qabin weey waa duality waxaad ka fiirin kartaa nin muxuu ahaa psychological principles waxbay isu dhimeen dadka arrintaas sameeyay waana dad yar dadka reer waqooyiga dadka reer Soomaaliland waa aqaanaanu dad Soomaali ah oo dhiig Soomaaliyeed leh oo dadka ugu dhiig kulul Soomaalinimada difaaca ah weeyaan maantay in waxba isku beeray Abdi Malik Aldoon Awaale iyo tan iyo kuwa kale oo tiro badnaa iyo kuwii laga tarxilay Berbera waxa soo dhan baa isku beeray waxaan rajaynayaa inay si toos ah uga dhiidiyaan arrintaas uga hor yimaadaan ugana hadlaan waxa weeye nabigu wuxuu yiri kaleey salaatu salaam man raa minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi ninkii wax xun arkow la dagaalan waa amar la yantiqu an al-hawa waxa nabigu sheego ilaahay baa sheegay waxa ilaahay u soo dhiibay weey marka qofkii xuma arkow la dagaalan hadaadan la dagaalami karin arabka ka eedee oo meesha hadda aanu taagnahay hadaadan arabka ka eedeyn karin qalbiga kana Soomaa waxa kale oo jira xadiis oranaya akbarul jihad inda Allah kalimatul haqq inda sultan jair jihadka ugu weyn oo ilaahay xaqiisa ugu weyn ee la isku abaal mariyo aakhiri adduunba waxa weeye kelimad xaq ah oo aad nin sultan oo jair ah ama nin xukumo meel oo khayr daran aad hortiisa ka tirahay يعني شهيدك ودنتي إلهي درتيس إيا كانوا ويسكمت هدوس ما كدر يسوينين أكبر الجهاد بقى إلهي بحديث كله مركا حق دين حق دقن حق أمداد حق شرف أنت بحق بقى دول يدهين واد هيستان مانتي إن هذا هرنتا كدي ديدان لا يصوب بلابو لو يعدو إلا لا سعانو إيوه دالك أنت سكله إيه سومالد أنت ذكله وحلوات كيسان كرما مدكله dad ma guuro adeer dad baa ku nool dal wuxuu ku yahay dal wadadinu jooga dadkaana dad shaqaysta way halkaanay joogan qardhay joogan boosaasay joogan gaalka ayay joogan Soomaa dhuusamareeb bay joogan beledweyne joogan jowhar bay joogan xamar bay joogan ilaa meesha dalka u dhameysay joogan waxaan shaqo ahayna lagu ma oga hadda hotelkaan aan joogno garow ku yaala ayaga ka shaqeeya waana la ogyahay muruq maal way dad muruqooda maal way Soomaa cid kaliya Soomaali shaqaysta way saan ma ognahay